muuqaalka ugu horeeyana waxaan arkaynaa gabadhan oo lagu magacaabo G waxay u soo bedelinaysaa iskuul cusub kaasoo aad loo qiimeeyo marka koobaad iskuulka sida u soo agstaagtana waxay ka yaabisay iskuulka iyo qaabku weegyahay waxaana oranaysaa waa inay si dhiirigeliyaa si aan iskuulka si fiican ugu dhigto markii gudaha sida u soo gashana waxa ay arkaysaa in ardaydu ay yihiin arday kibirsan oo weliba ay ka muuqato inay wada taajiran yihiin marka ugu horeysana waxaa ka soo baxaya laba arday oo wada socda waxaana yaabaysaa labadan arday ee ninka iyo naagta ee maalinta is haysta waxaana nafteedu u sheegaysaa inay istijiso maalinta koobaadna inay qalalaasa ka abuurin iskuulka kadibna arday ay weydiinaysaa meesha uu ku yaalla galaaska ay dhigan doonto waxaan u eegayaa qaab liiditaan ku jiro isagoo ay ka muuqato inaanu rabin inay meesha sii joogto laakiin ugu dambayn uu sheegaya halka ay rabto marka ay sidaa u soo gaadhay meeshii loo soo tilmaamay ee ay dhigan lahaydna waxay arkaysaa in iskuulka qaybihiisa kale ay ka duwan tahay meel aad u qadiimi ahna ay tahay gudaha markay sidaa u gashana ardaydii meesha taagneed waxay weydiinaysaa su'aal kadibna mid ka mid ayaa ku xanaaqaya waxaan ku odhanayaa meesha iskaga tag waxba uma jawaabiso nafteeda way xakaminaysaa waxaana isku odhanaysaa balistij meeshana way iskaga tegaysaa markii meesha istiraado iskaga tagna waxay arkaysaa ardayda oo kasoo daba hadlaysa oo ka xaraabaysanaysaba waxaanay hoos iskugu odhanaysaa meeshuu iskuul ayaa loogu talagalaa waa maxay dadkani iyadoo sii raacinaysa oo odhanaysa waan arkaa meesha inaanay dad hagaagsan joogin bal laakiin aan ku raaxaysta maalinteeda koowaad iskuulka iyadoo socotana waxay soo gelaysaa galaaska ardaydoo dhamme ay ku wada jirtay dhigan lahayd markay sidaa u soo gashana dhammaantood way la wada yaabayaan laakiin waxba kama soo qaadaysa intay sidaa u egtay iska fadhiisanaysaa meel waxaana markaaba u imanaysa gabadh magaceeda iskugu sheegaysa raaki weyna salaamaysaa waxaana iskugu sheegaysaa inay tahay aliflaa galaas gabadhana u jeediyeen muddo dheer waxay sugaysay inay cunug dhasho ugu dambeyn isbitaalkana ugu dhasho cunugii ugu horreeyay laakiin hal mar waxay arkaysaa wejiga ninkeeda oo murugo ka muuqato iyo sidoo kale isbitaalka dhakhtarkii joogo isaguna murugo ka muuqato waxay weydiisay idinka labadiina maxaan ka qaldan mase cunugayga wax ku dhaceen dhakhtarku wuxuu ku dhahaa waa ka xumahay nasiib xumo cunugaagu muusan badbaadinay wuu dhintay iyadana waa tanaahay iyadoo arrintaas aad uga murugootay maadaama ay sugaysa wakhti dheer inay cunug dhasho xoogaa kadib midkii dhakhtarka ah xafiiskiisa wuxuu ku ballamiyey iyada ninkeeda wuxuu ku dhahaa waa ogahay wakhti ku habboon ma ahan laakiin waxaa jiro arrin muhiim ah oo ay tahay ina ogaato markii uu weydiiyey waxaas waxay yihiinna wuxuu u sheegaa in xaaskiisu aysan cunug dambe hadda kadib dhali doonin dhibaatada soo gaarta awgeed intaas kadib wakhtigu wuu gudbay arrintaasna waxaa ka soo wareegatay bilooyin aad u badan iyadiina waa tana iyadoo mar kale fiirinaysa baalka uurka lagu tijaabiyey laakiin nasiib xumo waxa u soo baxaya haddana inaysan uur lahayn iyadoo meesha murugo la fadhiisana midkan intuu u yimaado markii uu weydiiyey waxa ku dhacay waxay tusinaysaa bahashii markii uu arkay middan inay weli cunug rabto wuxuu u sheegaa hadalkii oo mar hore dhakhtarku u sheegay ee ahay inaysan iyadu cunug dhali karin markay weydiisay sababta wakhtigaas dheer uga qarinayayna waa kan isagoo bilaabaya inuu ka raaligeliyo intaas kadib annagu waxaan ogaanaynaa midkan inuu xaas kala qabay weliba si qarsoodiya ayna u dhashay gabar yar isla markaas uu la joogana waxay ku dhehaysaa cunugtaada yarta iga qaado aniga waxaa jiro arrimo badan aan qabsan lahay magaaladan inaa isaga tagaa rabaa wuxuu ka codsanaya inaysan arrintaas samayn maadaama uusan rabin inay xaaskiisu ogaato laakiin iyadu hadalkiisa way iska dhigatirtay iyadoo u sheegaysa hadduu cunugta ka qaadan waaye inay gey doonto meesha carruurta lagu xanaaneeyo isna waa kanaaye muxuu sameeyaa ugu dambayn cunugtiisa yar waa watay markuu ogaada midaan inay ballanta uga baxday si uu iyada meesha uga saarana gabadhiisa yareed oo magaca xaaskiisa ku soo qoray si uu uga dhiga inay iyada dhashay camal laakiin nasiib xumo intii ay laamiga sii saarnaayeen gaariga birigiisa ka hilaabay sidii uu halba gaariga meel ugu dhufanayo ugu dambayn bir meesha ku taalay shil ku galeen xoogaa kadib isaga isbitaalka loo soo qaaday xaaskiisana waatan iyadoo ordaysa oona dhakhtarka weydiinaysa meesha isaga la geeyey dhakhtarkuna waa kanaaye su-aasha ay weydiiday wuxuu isku dayaa inuu ka meermeeriyo markay su-aasheeda ku adkaysatana ugu dambayn niyadduu ka jibinaya isagoo u sheegaya inuu ninkeedu dhintay iyadoo mar saddexaad arrintaas ka murugootaa midkan askariga wuxuu u sheegaa inuu ninkeedu dhintay laakiin ay gabadheeda u badbaada hadda iyadoo yaaban oona wareersanay waxay ku dhehaysaa gabadhaa sheegisid maxaa waaye aniga gabar dhan ma dhali kari qof kale igu qaldiisina u malayna laakiin askarigu wuxuu tusaa waraaqadii oo aabbuhu soo diyaariyey ee gaariga saarneed ee magaceeda uu gabadha ugala soo qoray mar kale askariga waxay ugu soo celinaya aniga waa kuu sheegay ilmo dhan ma dhali kari xoogaa kadib iyadoo teleefon isaga hadleedoo gabadhi intoo ka doono qolkii ku jirto u keenay markii uu askarigu ka tegay midda yar waxay bilaabaysaa in iyada laftirkeeda ay weydiido meesha aabbaheed ka baxay su'aalo badan ay weydiinaysa ugu dambayn sawirka ninkeeda intay tustay waxay ku dhehaysaa sax waaye midkan aabbahayga waaye ugu dambayn waxay go'aansanaya inay gurigeeda u wado kadib markii ay ka jooji weysa aabbahayga xaguu ka baxay markay guriga yimaadeen waxay weydiinaysaa waxaad ii sheegtaa hooyada magaceeda si aan adiga kuugu geeyo ama aan iyada kuugu keeno laakiin iyadu hooyadeedo dhan way inkaraya maadaama ay middaas marar badan geeday meesha carruurta lagu xanaaneeyo ugu dambayn iyadu way baxaysaa si ay uga soo gaddo dhar ay isaga beddesho midkan ay shilka ku gashay dharkii markay u soo gadday maalintii labaad intay soo baxday ee askariga u imaatay si ay u tusto waraaqadaha inaysan cunug dhan dhali karin askariga oo arrintaa la yaabana middan wuxuu ku dhahaa sooma laga yaabo ninkaagu inuu horay cunugtan u dhalay kadib wuxuu siinaa nambarka kuwa ilmaha yararkaa xanaaneeyo si ay meeshaas u geydo xoogaa kadib waatana iyadoo gurigeeda joogto oona sawirka ninkeeda la hadleedo iyadoo ku dhehaysa wax badanaa isku qastay kadib waa dhimatay gabadhii yareeda inta u timaaday la soo fadhiisatay kadib waxay ku dhehaysaa waxaa jiro arrin muhiim ah oo aan kuu sheegi rabo marka ay weydiidana waxay ku dhehaysaa maanta waxaan soo caddeeyey inaan adigu ku dhalin sidaas darteed waxaa lii sheegay meesha carruurta lagu xanaanayo inaan adiga ku geeyo intaasna waxay u raacinayaa ka welwelin meeshaas aaday u fiican tahay waxaana ku yeela doontaa saaxiibo wanaagsan
iyadana marar badanaa meeshaas lagu soo dhibaateeyey laakiin hadda maxay sameedahay inay iska ogolaato waaye isla subaxdiiba way soo waday meesha carruurta lagu xanaaniyana way keentay waxay u rajeynayeen inay hooyadeed sida ugu dhaqsiyaha badan ku hesho weyna macsalaamiine laakiin iyadoo sii baxday waxay maqlaysaa duqda oo gabadha u sharaxaysa shuruudaha qallafsan ee xarunta shuruudaha ay duqda u sharaxayda waxaa ka mid ahay inay subaxdii alisayda soo kacido ayna shaqaysanaydo si ay u hesho cunnadii ay cuni lahayd intaas keliya maahane iyada qayladeeda xitaa uu isii dheertaa maadaamay tahay mid ka kan isla markaasna iyagoo xarunta sii galayay hal mar iyadu soo hadle kadib duqda waxay weydiiday sababtay u soo laabatay iyaduna waxay ku dhehaysaa waxaa rabaa maskaxdii inaa bedelo cunugtan aniga xanaanaynayo inta hooyadeed ka soo laabanayso iyadoo u muuqata inaysan arrintaas ku qanacsanayna waxay u sheegaya inay cunugteeda wada karto kadib iyadu waxay bilaabaysaa inay cunugta yar ka raaligeliso maadaama ay rabtay inay xarun qallafsan uga tagto intaas kadib waxay u muuqataa labadooda inay isfahmeen midaanna ay heshay cunugii ay wakhtiga dhan raadinaysay midaanna ay heshay hooyo wanaagsan maalin maalmaha ka mid a midaan yar gurigay dib ugu soo laabanaya kadib markii iskuul laga soo fasaxay iyagoo sheekaysanaya hal mar midaan waxaa ka soo baxsanayo hooyo midaanna way aamini la'dahay in la dhahayo hadal ay sugaysay wakhti dheer in la dhaho hal mar ugu dambayna muuqaalkeenu intaasuu ku ekaay ee hadda halkaas soo gaarta legnoosa